markana magaalada Muqdisho wariyahana magaalada Muqdisho Maxamed Daacad ayaa waxa uu booqday goob laga sameeyay beer oo laga hirgeliyay degmada Kaxda isla markaana wareystay mid kamid ah dadka hirgeliyay beertaasi iyo shaqaalaha beertaasi ka howlgala waxa uu nagala qayb qaadanayaa barnaamijka hargalka maanta hargal wanaagsan Maxamed Daacad saxad baad maasan tahay hargal wanaagsan waxaan ku suganahay beer yar oo laga hirgeliyay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir beertan waxa hirgeliyay mid kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed waana beer yar oo ay ka baxayaan adeegyo kala duwan oo dalka inta badan laga isticmaalo sida canooniga babayga iyo sidoo kale geedaha kala duwan ee geedka halkan waxa booqasho yar ku yimid qaar kamid ah shaqaalaha RTN waxaana sidoo kale aan ka wareysanay gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Ismaaciil waxa uu sharaxayaa beertan hadda ku suganahay iyo adeegyada kala duwan ee lagu talaalay maadaama ay tahay beer yar oo ay ka baxayaan adeegyo kala duwan oo geed miroodka oo dalka aan ku yahay waad arkaysaan meeshan quruxda badan ee joogno waa meel runtii maal iyo tacab la galiyay dalkeenu waa hodan haday beer tahay haday bad tahay haday bari tahay haday xoolaha Ilaahay nagu manaysay tahay waxaan isleeyahay waa inta ugu yar oo hadda lagu baahi beeli karo waxaad aragtaan waa hormar ay sameeyay shakhsi Soomaali ah meeshani waxa weeye waa guri ama hotel ama guri loogu talagalay deegaan wuxuu rabaa ninka iskale inuusan wax kale meel kale wax u doonanin noloshiisa ama xagga qudaarta ama xagga midhaha u baahan yahay inuusan meel kale u doonanin gurigiisa dhexdiisa waxa la wuxuu u baahan yahay oo si yaro fudud uga heli karo waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed ee meel walba dhibaatada iyo gaajada la tiicaysay haddii ay ku tashato inay iyagu ay isku filaadaan waa wax laga baahi beeli karo gacmahaaga biyo laga dharga waxaan leeyahay nin walba oo Soomaali ah 1 mitir 10 mitir oo wax ku beerto ayaa deeqi karta waa soo dhaweyn waxaan leenahay waana maartay runtii waana dhiirigelinayna muwaadinka Soomaaliyeed aad arkaysaan beertan quruxda badan ee gurigiisa ee sida ugu soo sameeyay in lagu daydo waa wax ku dayasho mudan waxaanan maartay dhanka kale waxaan ku baaqayaa bulshada degmada Kaxda ka soo jeeda haday qurba ku nooshahay iyo haday guda jeebtaba inay degmadooda maal gashadaan oo ay sida muwaadinkan sidan ugu sameeyay oo kale iyo si ka sii maaragtay horumarsanba ay u sameystaan dalkoodana ay dhistaan waana ummadda Soomaaliyeed oo dhan baaqaasi aan isleeyahay waxa weeye waa in uu wada gaaro runtii isku dayasho ummadda Soomaaliyeed waxa khayr kale iyo waxa wanaagsan iyo talada wanaagsan waa la iskaga daydaa waxaan leeyahay waa meel mudan in lagu daydo maxaa yeelay waa carrad aan waliba carro madow ahayn waxa soo beera iyo waxa soo qudaar iyo waxa soo nimca ay ka baxayaan Soomaaliyeed Ilaahay baa inagu ciqaabaya inay badeeniina buuxdo barigeeniina buuxdo haddana aan gacan bini aadam hoosta aan 24 saac aan gacanta horsano geedaha halkan ka baxaya waad arki kartaan waa geed miroodkii waa cambihi waa liintii waa canoonigii waxa weeye waa isbaandhayskii waxa weeye waa mooskii waa baamiyihii waa yaanyadii waa salaatadii wax kasta oo qudaar waa koosadii wax kasta oo qudaar oo bini aadamku u baahan yahay ayuu ninkani beeray waxa dhax socoto kale tii kale isha u roonayd ee maaragtay aad arki kartaan sida geedkan oo kale maaragtay wax walba oo qudaara oo nafta bini aadmigu ay isticmaasho oo dhan buu wiilkani beeray runtii waa nin Soomaaliyeed waa nin maaragtay muwaadina waa nin ku nool maaragtay dalka dibadiisa sanadkiiba mar buu yimaadaa wuxuu ku sameeyaa wax yar oo tadawurada oo horumar ayuu ku sameeyaa waqtiga aan isleenahay insha Allah oo furi doonana wax badan oo warbaahinta way ka soo qayb gali doontaa waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa dalkeenu waa qani dalkeenu waa hodan aan ka baxno isqabqabsiga isijiidka dawladeennana aan ku taageero gacmahana isqabsano beertani waxay noqonaysaa waa 10 boos waa 40 lagu dhuftay 100 balaca waa 40 bay u tahay dhererkana 100 mitir bay u tahay waa hal balog oo kaamil ah waa hoygii uu ku noolaan lahaa inna beer ka dhigtay inna guriyihii uu degi lahaa ka dhigtay ninkan sidoo kale waxaan halkan kula kulmay Umar Maxamed oo ah ninka inta badan beertan wax badan ka bedelay oo ku dadaalay waraabka iyo tacabka beertan Umar ku soo dhaw telefishinka RTN aniga waxaan ahay Umar Maxamed Cabdi ninka beertan oo farsamada ku bedelay waa aniga oo khudaarta iyo khasabka iyo cambaha iyo babayga iyo mooska iyo oo wada cagaariyay ayadoo beerta baaba'san ayaan imid hadda beertii waa beer ayay noqotay
maasha allah ilaahay maarta haddana waxaan ka baryaynaa in maarta sidaas sidoo ku dareen inaan ka dhigno halkan maxaa ka baxaya marka hadda meesha waxaa ka baxaayo liinaa ka baxayso canooniyaa ka baxaayo magaciisa shawriyaa ka baxaayo magaciisa waxaa ka baxaayo qumbaa ka baxaayo moosaa ka baxaayo fiyooraa ka baxaayo uwaxaa ka baxaayo cambaa ka baxaayo yaa wax walbo ayana wixii maarta oo isla loo baahan yahay magaalada muqdisho meel noocan oo kale weli ma aragtay magaalada meelahan noocan oo kale camal weli ma ku arkin intaa maarta hadda igu horle ani gobolkankii gobolka Abdulaamin hadda habeenka halkaan jeefta Soomaa intaan jeefta habeen maalin halkaan joogay marka balka waran waqtigaaga maalintii beerahan oo kala waraabisa qaarkood waa jirtaa balka war waqtiga oo waqtiga gelisa waqtiga oo waraabka xilliga subaxii oo xilliga 2 saac oo kala amal casirkiina xilli 9 saac oo kala marka casirka dukan salaad dukan intisaar degmooyinka gobolka Banaadir wali ma aysan gaarin in beer aynkaan oo kala ay tacbaan waana arin ku wanaagsan dhinaca bilicda iyo wax soo saarka dalka argal wanaagsan